kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena xigashada wararka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale gambarelka furo si aad u ogaato wararka iyo warbixinada iyo muuqaalada iyo macluumaadka aan halkan idiin soo gelin. Fanaanka Cabdikariin Jago oo weerar culus ku qaaday fanaan Maxamed Siciid Biike. Wareysi uu bixiyay fanaanka Cabdikariin Jago ayuu waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay hadalkii ka soo yeeray fanaan Maxamed Siciid Biike oo ahaa inuu yahay fanaan Soomaaliyeed, fanka iyo siyaasadana uu kala saari doono. Sida muuqaalka fiidiyowga aad ku wada aragtaan, waa fanaan Cabdikariin Jago oo ka warbixinaya. Sidoo kale waxa uu cod buuxa u sheegay inuu yahay hanti qaran, taas oo ay Soomaali badan aad uga wada xumaadeen. Hadalkan wareysiga iyo weerarka afka ah ee uu geystay Maxamed Siciid Biike ee daawasho. anigu nin hanti qarana yaan ahay, Hargeysa iyo Hardooglay geed weyn harkiisi hoobaanta guutaal rabbi hoodan ka dhigayo nimeerte baahidu isku soo haleeyay inaad ugu habboon tahay hantida ka mudan tahay nacasbaa halmaamsano ifka lama huraaniyo Hargeysayihibaa tahay. waan buuxin karayaa sideen u buuxin karayn waan buuxin karayaa. waxaan ku buuxin karayaa anigu dalkayga iyo dadkayga iyo qarankayga waan jecelahay. fanka iyo siyaasadda waan kala saarayaa, anigu isma dhexgelinayo. marka fanku gaar buu yahaanayaa, siyaasadduna gaar bay yahaanaysaa. weligay isma dhexgelinayo. anigu nin hanti qarana yaan ahay.